السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan in wada qiso qurux badan oo qosol badan walaashiin Sahra mar labaad hawada ayay ku soo noqotay. qisooyinka waa wada walaalay meel kasta joogtay dalka iyo dibadda. waxaan in rajeynaa caafimaad iyo barwaaqo iyo raraan anigana sidoo kale alxamdulillah ilaahayga soo kiciya aniga iyo familkeyga caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash aan ku shukriyo rabbi. waxaan maanta in wada wadanka Tanzania Maasai qabiil la dhahayo oo dhaqankooda iyo caadaadkooda gabar European ayay guursadeen. gabadhaas magaceedu waxa la Stephanie waxay la nooshahay ninkeeda oo Maasai ah oo Tanzania waxay la nooshahay muddo 6 sano ah. waxay leedahay Maasai dhaqankooda cid way isla wada dagaysaa, waxbarasho ma yaalo, dharka xataa way barto. waxay samaysay inay harqaan meesha ka furto, inay harqaankii ninkeeda walaashiis ay barto. ninkeeda aabihiis wuxuu guursaday 2 naagood, hooyada oo dhashay wiilkaas dhashay ninkeeda iyo naag kale ayuu qabaa. marka maasha Allah family weyn waaye. Maasai dadka dhahayo waxay samaystaan xoolo leeyahay, caano, ari, waxaas ayay haystaan iyo lo. maasha Allah ayaga isla dago guriga si fiican u sameysana, si qurux badan xoolahooda ayay iska dhaqanayaan, meeshooda ayay iska joogaan. rij waaye weligeed iyo allaheed ninkeeda Yurub ma imaanin, iyada European waaye fa Ingiriis ayay ku hadlaysaa. hal wiil ayay u dhashay, wiilkeeda 2 sano ayuu jiraa. maasha Allah subhanallah. waxaan ka yaabay dumarada cadaanka aad iyo aad ay beeshinooyeen, aad iyo aad ay u sabar badan yihiin. waxay ugu sabar badan yihiin nin ayay ka baranaysaa meel website may ka baratay. qisadeeda waan soo ogaa doonaa gadaal dambe ayaan kasoo raadinayaa, laakiin hadda qisada ayin wada ayaan in sheegaa. Maasai dadka jooga waxay dhahday dhar qaali waaye, dhar isku koban, dhar badan ay isku xirayaan, tin ma haystaan. maasha Allah xoolooda iska dhaqanayaan, arigooda iska dhaqanayaan, lo'dooda iska dhaqanayaan, habiya isku wada yihiin. waxaan ku jeclaada ayay dhahaysaa wadamadan oo Afrikaanka. waxaan ku jeclaa familka waa iswada haystaa, dhaqankooda, caadaadkooda, taqaaliidkooda kama tagayaan, habiya yihiin, way qoslayaan. anaga oo wax ka haysano wadamada oo Yurub ay dhahday weli waan dacwoonaynaa, kaligan baa guri isku xireynaa. aabaha iyo hooyada waa ka tagaysa markaas 8 sano gart ayaga miska kala tagayaan. dumarada lacag ma haystaan, ragga ayaa maamulo. hadaa Maasai fiirisa muslimka inay shaabahaan u malaysaa. ninka ayaa wax kasta powerka haysta dhahday. waxay sameynaysaa hataa dumarada markoo waxa ku dhaco caadada camal inaan ka hadla ma jecli, laakiin ku dhaco waxay u samaysaa hataa maryo oo ay u toshay, dhar kale u soo gogosa, dhar caadi inay u tashay isku dayday. maryihii oo garabka laga xirana bes hoosta mid kale laga xira, saasaa lagu soconaa. waana qaawiye mana qaawno. raggana hoosta ka xirana korna go'aas lagu hogsanaa. marka dhaqamada waa qariib. iyadoo European ah ayay waxay isku dayday inay aado wadan Afrikaana 6 sano ay ku noolaato. waxay dhahdeen marmarka qaarkood YouTube ay haysataa, mararka qaarkood YouTube-ka ayaa waa baxa magaalada wax badan ay noo jirtaa dhahday. ayaan kasoo shaaxanaysanaa. marka dambe waxaa xaawilay dhahday inaan shaaxanadeeda aan istabarto. dhaqankooda iyo kajarkooda ay ku dhegiyeen mala bedel galo. halkaas cunug ayaan dhalay, maa dhashida ay dhahayaan mayaan dhahay dhadahalaana aan habi ku nahnay. odagayga ima dhibay dhahday, oda fiican waaye dhahday. maasha Allah habiyaan ku ahay. gurigeeda 2 qolaa looga dhisay. meeshay habi ku tahay naagta cadaanka iyadoo Yurub joogto, koronto iyo biyo iyo gaas iyo wax kasta heli karto ayay baxday, ayay aad meesha. hadalka maanta wuxuu ku socdaa dumarka. wax badan ragga la jiro, hadalka wuxuu ku socdaa dumarka. haddaana ragga loo sabrin hadda adduunyada ma kala socoleen. mar kastaba inay gabadha muslimada ay sabarto, iyada gooska gadaal ay shib iska dhahdo. hadduu naa guursaday hadduuna guursanin ilmahaada inaa ku sabirto. markasta wacdi gelin ayaa insoo geliya. waxaan ka calool xumaadaa caruurteena ayaa baaba'san, caruurta Soomaalida ayaa baaba'san. haddaa hooyadii aabaha ay kala tagaan mar kastaba caruurta ayaa dhibaatada ku imaanayso.
iyadoo naag cadaana ayay baxday, ayay aaday wadankaas Maasai ay aaday. waxaan sameynaa videoga halahan qaybta kale waxaan ku dhameystiraa iyada ayaan ku dhameystiraa ayaa ku arkaysiin. laakiin maasha Allah way cajabisay cuntadoodii, soortoodii, caanaha. gabar European oo markay dhalato koronto iyo gaas iyo biyo ku indha kala qaaday ka waran. waxaan hadalkaas u wadaa gabdhaheena qurbaha jooga. masalan gabar oo Soomaali ayaa waxa laga keenaa wadankii Yurub la keenaa ninkeeda war adiga ma aniga shaqo lagu leh. aad iyo aad waxa qaladka aan u saaraa dadka markay halkaan joogaan amba rag ha noqdo amba dumar ha noqdo markay la keeno maxay isku bedelaan. waayo qofka marka hore u jecleed, waayo qofka marka hore ay kula fiicneed, waayo qofka hada qaraar u noqday. gabadha muslimada adigana marka wiil soo guursatid ha ula dhaqmi sidii cunug adiga aad dhashay. wali amarkaada waa inaa ula dhaqantid sidii odagaada oo Ilaahay sidoo baneeyay diinta baneeyay ula dhaqan. iyadoo naagaala oo cadaana ayay wadan Afrikaana oo lo iyo caani arag capitalka magaalada xataa ma degin. waxay degtay baadiye Maasai waa taqaanin Tanzania degaan. waxay isku dayeen inay luqadooda barato because ninkaas ay jeceshahay. gabadheena Soomaaliyeed ee ninka u jeclaa sidii jad iyo qalbi. wiilkeena Soomaaliyeed oo gabadhaada walaashaana si jad oo dumarkaada u jeclaa. markasta hadaa isfurtiin amba aad ma rabi amba ma hadana waxa iigu dar marka Yurub la keena gabadha warku ma rabi warsana dhowr mar ayaan qisasoo yiisaas camal aan dhageystay. waxa maanta qisadan u soo qaatay dumarkeena Soomaaliyeed inay u sabraan ragga, inay candhuuftooda dib u laqaan, inay ninka kalmad dayib ay dhahaan, inay markuu odagaada imaado mobile iyo qad iyo waxaas oo total mamnuuc noqdo, oo time siisid odagaada, oo waqti siisid. war adigana wiilow hadaa gabadha guursatid adigana ula dhaqam sida quraanka iyo diinta ay sheegayso. ma fahamta walaalahay sheekadii meeshaas ayaan ugu baxaa. Maasai iyo gabadhii Europeanka Stevie meeshaas ayaan ugu baxaa. hadaa si jeceshiin inaad ogaatiin siday ku baratay comment-ka ii dhaafa waan in keena sheekadeeda. waxaan iga codsanaa like iyo sharing iyo comment walaalayaal. waan in baryaa igeeya hore ii wada. rabadaankiisi kale ayaan furtay sidii meeshii leen taagana hore uma soconaayo. qofa waxa arkaysaa laba xabo waxay soo walaaqaysaa yaanyo amba laba walxado waxyaalo bul oo dhaha YouTube-keeda nasiib iyo lucky way. ani wax kasta sameeyna waa qurxina kala juciyo jacma dhahayo. marka qisadii meeshaas ayaa ugu baxalaa kale waxaan ku dhameystiraa Stevie. haddii videoda wax yar dheeraadana iga raali ahaada walaalahay. intaan is arkayno waxaan iga tagaa qeyr iyo baraaqo iyo bashbash guri kasta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi. like sharing comment. see you later. Respect for your elders is paramount, and where everything is shared, even if that may be comparably little. The Maasai culture revolves around their cattle, which depend on an intact ecosystem to find enough grass to feed on. It is exactly this which is proving difficult for the modern Maasai due to an increasing human population that destroys the environment they live in. You are looking at one of the many farms in the Maasai steppe of Tanzania. It is a huge unprotected area in the heart of Tanzania and Maasai heartland, yet it is suffering from deforestation as an ever-increasing human population deforests woodland to turn into farmland. This deforestation is completely uncontrolled and unsustainable and needs to be stopped. It is one of the main reasons why I'm running my campaign. I hope in the long run to take back some of this land, to let it recover so that grasslands may grow back again. My campaign, I aim to take 4 Maasai from our village to the Mara Training Center in Kenya, where they will take a course in land management and conservation. I hope with this education they will be inspired to look after the land and make a stand against the ongoing deforestation. I am combining my background in conservation and the Maasai to change the way indigenous communities in Africa see their role in conservation. I believe efforts to save our wildlife can only be sustainable if they include the communities living close to this wildlife. It is out of love for the Maasai, for the beautiful country that is Tanzania, and for Mother Earth that I've run this campaign. I hope you find it in you to make a contribution so that you may help me make a real
difference. Thank you for watching this video. I hope it has inspired you to read more and to support my campaign so that we can work together towards a brighter future